السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي كسر هذا channel كيga منصوم وأولياشينا منى ما توحن كهر مرة إن أنا إذن كاغا فائدة أبكاني خان أكاديمي كيدز أيا لدها أب وحواي ما شاء الله إن أدي أدو في عن أدي عرورتي وقتي أدو ذا قادنيسان أدو ذا باشاليسان عنوغن wax uu ku baranayo maskaxdiisana aad ku bixinaysid abkani waa free waad la soo degaysaan hadda waad u jeedaan grade 2 saddexaad xanaanada 4 jir 3 jir 2 jir intaasoo da cashiro ku haboon ayuu ku hayaa hadii ay noqoto buugaagtii hadii ay noqoto akhriskii hadii ay noqoto qoraalkii hadii ay noqoto xisaabtii hadii ay noqoto dhanka maskaxda ilmaha laga dhisayo logically loo fikirayo waxyaabo badan oo haya marka cunuga daadiisa ayaad fiirinaysaa waad u geynaysaa waad iskala shaqeynaysaa si wada jir ah abkani English ayuu ku baxaa waxyaabo badan ayuu idinka caawinayaa qaasatan ilmaha ama waalidiinta aanan degnayn wadan Ingiriis oo kala looga hadlo waxa waadi cunuga waad wada fadhiisanaysaan waqti ayaad wada qaadanaysaan xisaabtoo kala waa very easy cunuga xisaab hadii uu yaqaano luqad allaale luqadii loo keeno waa isla meeshii buu yaqaanaa ku dar iyo ka jar iyo ku dhufo sheekooyin badan ayaa ku jiro kulli abkani wanaagiisa ma aragtay halkan kuma soo koobi karo ka faa'iideysta aad ayaan u isticmaalaa insha Allah asbuucan gudihiisana waxa anaga fasax ayaan galnay fasax ayaan ku jirnaa ababkan isticmaalo maalin walba hal ab ayaan idinkaga faa'iideynayaa hadii ay noqoto mid diini iyo hadii ay noqoto mid maadi biidnillaahi alkariim marka abka ugu horeeya maanta ayaan idin la wadaagay Khan Academy Kids ayaa la dhahaa ka wada faa'iideysta waqti wada qaata wada fadhiista adiyo ilmaha cunugiibo 20 daqiiqo 15 daqiiqo ayaa ka badan maalintii ma sha Allah waxa waaye wax ay cunuga ku bartay maskaxdiisana waa kobcisay insha Allah marka ha moogaanina ababka kale tan waxa waaye waan idin la soo wadaagi doonaa biidnillaahi alkariim idinkana walaalihiina la sii wadaaga khayrka sii faafiya share iyo like iyo comment iyo subscribe intaba waxa waaye waa xageena hanaga hilmaamina biidnillaahi alkariim hadda kale waxaan idin tusaaya xuruufta qaybtan oo kale English ayuu ku hadlaa wuxuu ku leeyahay xuruuf hebel oo kala dhalada ku rid hadii aad fahamsan tahay ayuu ku weydiinayaa xuruufta xitaa wuxuu ku dhahaa shaqal xuruufta weyn oo yani xarafka weyn iyo xarafka yar oo kala waxyaabo badan ayaad ku baranaysaan haddana routinekiina ayaa inoo bilaabanaya biidnillaahi alkariim caruurta ayaan quraac siinayaa quraacda kadib ayaan isku soo laabanaynaa maanta aniga axad ayay ii tahay vlogani waa axad waxaan jeclaystay marka asxaabay inaan idin la wadaago timihii jimcadii ayaan nafaqa soo marinay marka nafaqadaasi sidii tinta ka dhigayso ayaan jeclaystay caano qumbo ayaan marsanaa caano qumbaha marka laba siyaabo ayaan u isticmaalaa jimcada soo socotan insha Allah hab kale ayaan idin tusi doonaa oo loo isticmaali karo laakiin waxay sameynaysaa waxa waaye tinta horta way kala furfuraysaa oo waa ujeedin tinta dhaldhalaal ayaa ku jiro iskuma dhegdhegayiino tinta waa naacim teeda kale tan waxa waaye isdhexgalka aan horta adduunka ugu necbahay ilmina xanuun ay dareemayeen adeegna dhib ay ku qabtaa marka hagaajinaysid caagadaas yaraan idin tusayna insha Allah ma ogaanina dollarka ayaad ka helaysaan biyo ayaad ku shubanaysaa shallana way ku tahay biyana waad ku shubanaysaa oo markaad u baahan tahay waad ugu shallayn kartaa haddana waxaa la gaaray xilligii aan banaankan aadi lahaynay ma sha Allah qoraxda ayaan soo booqatay qoraxda ayaan soo dhaweynaynaa wali waxa way meelaha qaarkiisa baraf ayaa yaalo laakiin qoraxda ma sha Allah aniga reero qorax ayaan ahay qoraxda farxad ayaan ku dareemaa guriga kala ma jecel inaan sii fadhiisto qoraxda ma sha Allah Ilaahay noo zaadiyo aad ayaan u jeclahay adiga reero qorax miyaa tahay mise qoraxda waxa tahay dadka nacib ama ay dhibayso kala oo guriga jecel inuu iska joogo commentiga ugu soo qora caruurta intay iska ciyaarayaan ayaan iska sii tasbiixsanayaa tobankii dambe ramadaanka ayaa lagu jiraa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa way khayrkiisana soo aadiyo haddana ka wada faa'iideysano waa dhiirigelin ku socota nafsadeyda iyo tiinaba insha Allah inaan ka wada faa'iideysano haddana banaankii ciyaartii way inoo dhamaatay gurigii ayaan aadaynaa qado ayaan karinayaa qadadaasi waxa way anagana afur ayay inoo tahay caruurtan isbuucana maadaama ay joogaan ayaga qada ayay u tahay casho gooni ayaan u sameyn doonaa cashadan waxaan sameynayaa waxa aan ku saxuuranayno ayaan casho insha Allah uga dhigi doonaa marka hadda qadada ayaan buufsiinaynaa qadadan waxa waa iskuulaadka ayaa looga kariyaa waa qado aniga ahaantayda aan ka helo oo aan jeclahay way macdahay protein iyo nafaqadeeda iyo fiberkeeda aan laga sheekeyn karin inaba caadi ma ahan marka hilib ayaan isticmaalayaa waxaa kaloo halkaan ku soo wixii waa tuun iyo basal aan soo hoolay iyo kabsar caleen
ilmaho kale haddii basasho kale ay diidayaan ama aysan jecleen ay maantana cuntada ay kasoo cayaan waxaad sameyn kartaa waad hooleysaa. basasho kale aad iyo aad ay caruurta ugu fiican tahay. caruurta aanan dhihin dadkoo dhan lafaha ayay dhistaa. waxaa waaye waxyaabo loo baahan yahay. marka sidaas darteed oo kale ilmihiina hadday diidayaan waxaa sameynaysaa waa soo hooleysaa sida ii sheeg cheese-ko kale maaragta sida loo hoolo ayaad ku hooleysaan. haddana waxaan ku darayaa digirteeni aad taqiineen baabashaatan way karsan tahay way diyaarsan tahay waan soo raacsiiyey. baabasha ayaan isticmaalaynaa caruurtoo kale haddii idinkugu cusub yihiin oo kale waxaad sameyn kartaa waa burburin kartaa si aysan u dareemin. haddii kale waxaa waay sideeda ayaad ku cuni kartiin. cuntadan waa very easy. bariis cadaad ku cuni kartaa, baastaad ku cuni kartaa, canjeero, sabaayad, muufo, whatever guriga ku yaal ayaad ku cuni kartaa. marka waxaan sameynayaa biyihii wax dhan iyo xawaajiyadii waan kusoo daray. markay wax yar ay gursanayso oo aan arko waxaan sameynayaa spinach ayaan kusoo darayaa. spinach iyo waxaan kaloo kusoo dari doonaa digirteena jaalaha ayaan kusoo dari doonaa. cuntadan xitaa googlaha hadaad ku qortiin waad arki kartaan. iskuulaadkan ilmaha waa looga kariyaa. chili con corn ayaa la dhahaa. hilib shishiidka haddii aad rabin waad ka dhaafi kartaa. haddii kale waxaa waaye maasha allah wuu ku macyahay. intaan markii aan isku soo daro wax yar oo dufan yar ayaan rabaa inaan u yeelo. waxaan isticmaali doonaa cream fresh ayaan isticmaalayaa. creamna wuu ka dhigayaa, macaanna wuu u yeelayaa, wax yaroo faad yarna waan helayaa. maadaama bariis cad lagu cunaayo bariiska biyo kaliya ayaan kusoo karkarin doonaa. sidaas darteed waxaa waayey wax yaroo faad yar aan u baahanahay. cream freshna waan ku darsanayaa si suugada ay igu noqoto creamy igu noqonaysaa, very tasty way tahay. marka hadda intaan waa ii diyaar. waan huurinayaa. haddana waxaa waayey waxaan diyaarsanayaa afarka ayaan diyaarsanayaa. marka bariiska ujeediin biyo kaliya ayaan kusoo kariyey iyo wax yar oo cusub. marka insha allah asxaabay waxaa waaye videoga xaqiisa siiya like iyo share iyo subscribe intaba khayrka sii faafiya. ababkan insha allah isbuucan gudihiisa aan idinla wadaagayo si ay walaalaheen ay ugu wada faa'iideystaan. marka waan is wada caawinaynaa aan isku soo duceyno. cibaadada aan badino 10kii ugu dambeeyay ayaa lagu jiraa. marka insha allah asxaabay idinkan waa mahadsantihiin sida quruxda badan mar walba hadii la socotaan. ducadiina commentiyadiina quruxda badan. jazakallah khair ayaan idin leeyahay asxaabta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.